على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. waxaynu soo gaarnay nadwadii ama su'aalihii iyo jawaabaha qayb ka mid ah muxaadaraadkii noo soo bilowday shalay galab. waxaana ilaahay mahadiisa subxaanahu wa tacaala in ilaahay subxaanahu wa tacaala ummaddan uu ku siiyey meel walba oo ay tagtay culimo caalimiin ah oo rabbaaniyiin ah oo u heelan inay u faahfaahiyaan waxa iska dhexgalay arrimaha diinkooda iyo adduunyadooda. runtii waa nasiib dad fara badan laga qadiyey, loona baahan yahay shukrigeeda in lala yimaado. qodobka xiga in su'aalaha la weydiiyo ahlu cilmiga qur-aankay mansuus ku tahay, nabigana salawaatullaahi wasalaamu calayhi sunnadiisa waa ay ka buuxdaa. waxay u baahan yihiin su'aalahaas marka in loo qaato cilmi ahaan ee aanan loo qaadanin in culimmadu waxa ay ka yidhaahdeen keliya laga ogaado, oo su'aasha uu qayrkaa weydiiye ta adigu aad weydiiso isku sibay ku anfacayaanoo waxaa laga yaabaa su'aal qayrkaa ka timid inay kaaga anfac badato tii adigu aad qabtay. marka su'aalaha iyo jawaabahooda iyo duruusta baxaysu waa ay iskabayaan, oo su'aalaha iyo jawaabahooda waxay dhammaystir u yihiin casharadii culimmada ay bixiyeen, bal ee meel ka fog bay gaaraanoo wax laga yaaba inaysan culimmadu u tadarruqin ama aysan u leexanin bay dadku su'aalahan u soo weydiinayaan. marar badan marka waxaa la yidhahdaa su'aaluhu waa ka xiise badan yihiin casharada, laakiin arrinku inuu intaas noqdo maahane waxaan laga jawaabayo waa wax khuseeya diinkeenni weeye, oo wax khuseeya aakhiradeenni weeye. waxay u baahan tahay in loola tafaaculo oo loola tacaamulo waxaas waxyiga ku saabsanee diinta ku saabsanee laga soo jawaabiyo iftacelinahayo si lamida sida loola tafaaculahayo duruusta. labada sheekh baan insha allahu tacala haddii ilah yidhahda su'aalaha aad soo bandhigteen aynu u soo gudbinaynaa, ayaga ayaana ka jawaabi doona biidn illah. saa'ilkan waxa uu leeyahay sheekh, nin ilmihii isagu uu dhalay inkiray uu yidhi ma dhalin, isagoo xaaskiisa ku xumaynaya, ninkaa xaalkiisu sidee buu yahay? sheekh yuusuf. بسم الله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، waxay ahayd sheekh maxamed aan ugu bilaabo waxaa la yidhi Soomaad waxay yidhaahdeen hadal ninkii xumay lahaa horumar ay yidhaahdeen. marka su'aasha haddii haweenaydii maaragtay ninkii hadduu ilmaha inkiro, ilmahan ma dhalin uu yidhaahdo, haweentana uu ku inkiro ilmaha inuusan ka dhalin, noocyaal fara badan bay leedahay arrintaasi, u baahan xoogaa inaan hubinno. yurub waxay leedahay caadooyin aan ku aqaano iyo arrimaan soo joogay rag ilma ay dhaleen inkiray, laakiin aysan islaanta qadfino xaaraan bay ku keentay ilmahan aysan odhanayn, dowladda xaggeeda inay ilmahan diidaan oo ay inkiraan, ay dafiraan. markaasi waxaa ka dambeeya Maraykanna way ka jirtaa sidoo kale, waxaa ka dambeeyahay lacagta laga doonayo inuu ka cararo darteed ayaa keenayso aabbahu lacagta maaragtay inuu bixiyo ay tahay ayay ka cararaan. sidaa darteeda ilmahani ma dhalin bay yidhaahdeen, anugu maaragtay way jirtaa arrintaa, laakiin aan og inuu dhalay xaqiiqatan, islaantana aan ku dafirinin, laakiin sidau dowladda xuquuqda ay ku waajibinayso oo carruurta u waajibinayso ama carruurta lagu leeyahay. xaggeena Sweden waxaan ka niraanaa waxaa jira forshigninka ayaa lacagta bixiya, kabacdina odagaa dusha laga saaraa. laakiin haddii uusan ilmaha sheegan oo ilmaha inkiro, lacagta way dhacdaa inay ka fakadaan. nooc baa nooca u sameeya. masalaas weeyaan. masalana ninku inuu islaantaba yidhaahdo ilmahaani uga garac bay ku keentay, sida hadda su'aasha daahirkeeda ka muuqanaysa, way garacatay ilmo asagu u dhalay. masalada midda hore oo ah inuu ninku lacagaha ka cararo, hadda waajibkii sharciga islaamka uu saaray ee carruurtaana biilkooda iyo mas-uuliyadooda ilaahay saaray ayuu doonayaa inuu dafiro ka cararo. masaladaasna waa masale maanta qiyaamada ilaahay weydiin doono subxaanahu wa tacaala, kullukum raacin wa kullukum mas'uulun can raciyati. qof kastoo carruur leh iyo reer dhalay, carruur dhala ujeedaa reerna mas-uul ka ah, maalinta qiyaamada ilaahay waa weydiinayaa subxaanahu wa tacaala mas-uuliyaddii
hadduu ku gabood falo sharci ahaan iyo waxaa lagu leeyahay haweentaasina xaq u leedahay inay ninkan xaqeeda ka dalbato oo haddii uu qaali islaama jirona iyo maraakista islaamka ay uga dacwooto haddii ay wax uga qaban waayaanna dawladda ay ku hoos nooshahay inay uga dacwooto maarta ee xuquuqdeeda ay ka qaadato waan ogahay qaanuunka wadamadaani qasab baa looga qaadayaa lacagta haddii uu shaqeeyo loo goynaya hadday maarta cadaato haddii la isku qabsado waxaa jira xafiso u gaar ah ilmaha uu inkiro maanta DNN baa laga qaadaa carruurta hooyadu waxay xaq u leedahay inay dalbato in laga qaado ilmahan DNN-ta laga soo qaado si ay ugu cadayso odagaan inuu dhalay maarta ilmahaas uu xaq u leeyahay masalaas mas'ala xaq u leedahay oo hooyadaasi ma garanaysaa ama haddii uu haweenayda yiraahdo ilmahan kama dhalinin ee ayada meel kale ka keentay masaladaasi waa masalatu qadf weeyaan waa in la kala xukumaa waa inuu ma garanaysaa haweentan dee zinanimo iyo wuxuu ku tuhmay iyo maarta xumo ku tuhmay masaladii shariicada islaamka licaanki iyo la yaqiina shariicada waa in loo qaadaa waa in loo qabtaa waa in xugun tagaan masaajida maarta mas'uulka ka ah jaaliyaadka inay maarta xugun tanto islaantaas ay u sheegto ninkan carruurtaas ugu inkiray si loo mariyo masaladii maarta si shariicadu ay ahayd intaas baan ka oranayaa Sheekh Maxamed wuxuu ku daray wallahu a'lam بسم الله الرحمن الرحيم waxaan ku dari maayo inta sheekhu yiri kaliya xadiis baan xusuusin lahaa oo nabiga ilaahay sallallahu alayhi wasallam ninkii ilmihiisa isagoo og inuu dhalay inkira ilaahay baa maalinta qiyaamada iska xijaaba yani ilaahay tabaaraka wa taala aakhira marka la tago nicmooyinka ugu qaalisan ee la helo ee jannada xataa ka qaalisan waa ilaahay daawashadiisa marka ilaahay baa iska xijaabay maadaama ilmihiisii oo xaq ku leh uu inkiray marka waa dunuubta aadka u waaweyn bay ka mid tahay wallahu a'lam جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكما شيخ محمد waxa aan ku su'aalayaa haddii gabar weligeeda uu isoo wakiisho walaayada ma waxaan ku wareejinayaa sheekha gabadha meherinaya mise ninkii guursanayay baan toos ugu wareejinayaa su'aasha labaad waxa ay tahay anagu waxa meel noo taala weligii oo joogo in la raadiyo wadaad wax isku meheriyay haddii wadaadka la waayana meherku ansax maaha su'aasha labaad waxa ay tahay qofka xawaalada haysta haddaan iga sii dar iraahdo lacagta gadaalna aan uga keeno markii aynu ku ballannay riba ma soo gelaysaa sheekh lacagtaas iyada lacagtu uu dirahayana ay tahay lacag ayuu ka faa'iidayaa mid uu dirayana labada su'aalood is saaran oo midna walaayadu ku saabsan tahay midna xawaalada oo iga sii dir la yiraahdo dib laga keeno lacag ka hela arrintaas maxay shariicada ka qabtaa bismillaahir rahmaanir rahiim su'aasha hore oo ku saabsan wilaayada gabadha haddii lagu soo wareejiyo oo weligeedii wakiil ka tahay sida asalkii waa inaad adigu meheriso saas asal ah oo wakaalada asal ahaan ma sii wareegto ilaa weligii asalka ahaa ee ku dhiibtay aad ku noqoto oo tiraahdo ma wareejiya oo wakiil kale ma sii sameeya laana sheekhu waa wakiil shariicadu asal ahaan marka guurka la samaynayo boos sheekh la yiraahdo meel ku jira ma laha boos sheekh la yiraahdo kutubta laga heli maayo waxaa jira wax la yiraahdo wali gabadha guurinay iyo kii guursanay iyo markhaatiyadii waa inta laakiin inuu sheekh guuriyo Soomaali dhaqankeed waxayna ka dhalatay taqriiban dadku inta badan qaabka guurka ma yaqaanaan la isu guursan marka sheekh saasa loo soo galiyaa laakiin asalku wax weeyaan ninka gabadha weligeeda ama wakiilkiisa baa si toos ah wuxuu ugu guurinayaa ninkii gabadha guursanay
gabadha oo wakiilka ahay ama weligeedii ahay waan kuu guuriyey meherkeeduna waa inta waan aqbalay wax culus ma ahaba yaa wixii la gargariiri jiray markii muxuu ahay la siinayo la nici jiray ma ahaba inta hawshu waa ka fududahay waa hawl fudud marka asalka horta waa sidaas oo wilaayada lama wareejiyo laakiin curfiga Soomaaliga markaan hadda dib ugu noqdo taqriiban waxaan isleeyahay dib ma leh inaad sheekha ku wareejiso waxaan ka qaadanaynaa waliga gabadha waligeeda markuu adiga kugu soo wareejinayo wuu og yahay inaad sheekh ku wareejin doonto xagee buu ka ogaaday curfigaasaas dhaqanka Soomaaliga ah baa wuxuu yahay gabadha inuu sheekh meheriyo sheekhana lagu wareejiyo wilaayada taqriiban marka waxay u badan tahay markuu aabaheed wilaayadeeda kugu soo wareejinayo jaa wuxuu ku leeyahay adiga wakiiliga ee sheekha u dhib sidaas oo kale ka dhiganta oo al-ma'ruufu 'urfan kal mashruuti shartan oo kale ka dhiganta maadaama dhaqankeenu sidaas yahay lagana yaabo inuu waligu sidaa ku tala gashan yahay dhibaato male inaad sheekha ku wareejiso adigu oo wakiil ah inaad sheekha ku wareejiso oo guuriyo inaad adigu toos u guurisana way ka sii fiicanta mas'alada labaad oo ah xawaalada iga sii dir arintaasi baadhis baan ku sameeyay natiijadeeduna waxa weeyaan ma banaana ilaa 3 mukhalafo oo sharci ah ku jirta oo mid ka mid ah riba ay tahay iga sii dir dib baan ka keenay xawaaladaha Soomaalidu way ku shaqeeyaan lagamana karo dadkuna ma daayaan iyaguna ma daayaan oo qaar ka mid ah inta ii dirsadeen oo baxti nooga soo sameeyeen u soo sameeyay oo la fadhiistay oo milkiilayaashii oo ka qanciyay baa waxay yiraahdeen ma dayn karno sheekh ma dayn karno haddii shirkadaha dhan intay isu yimaadaan go'aan midaysan laga soo wada saaray shirkadii joojisa suuqayba ka bixi bay custom ka dhan baaba ka leexan marka ma dayn karno dadaydan dayn karin su'aasheeda joojiya idinka laftiinu war iska daaya hadii la yiraahdo dayn maysa marka laba hay isku darina wixii inaad raadisaan hadana idaan ku dhaqmo mas'alada iga sii dir waa mas'ala shariicada khilaafsan riba kamida laba qardiyo laba yaani aqdi oo qardi labaduba oo isku xiran shariicaduna diiday baa ku jirta ila 3 sababood oo mancinaysa yaa ku jirta wallahu a'lam jazakallahu khayran wa ahsana Allahu ilayk sheekh Muhammad sheekh Yusuf qofku lacag ma sii deysan karaa si uu u sadaqaysto su'aasha labaad waxa ay tahay dadka ajnabiga ah ee dariiqyada ka dawarsanaya wixii aan siiyo ee aan sadaqa u niyeysto sadaqa ma in noqonaysa su'aasha saddexaad nin lacag u soo dhacday taasoo ku soo khaldantay isticmaali karaa lacag khaldan baa u soo dhacdo isaga aanan u soconin marka afka ma iska marin karaa buu leeyahay bismillaah waxaan u malaynayaa waa Soomaali sida dadku ay yiraahdeen baraayo waxa uu daran midii ka qoslidaa leeyahay waxaan u malaynayaa qosolku waxa ka dhashay inay tahay maartay mas'alo iska waadixa ee wadaadka bal ku day magaalay baneeyay inay tahay marka mas'alaas dadka dhanba wada xukumayo xoolo qalad ku soo galay waa la iska celiyaa meesha ka yimaadeen baa dib loogu celiyaa lama cuno oo ayadu waa iska cadahay sababtoo xoolaha ma aha hadday dawladdu koonto kugu soo qalado iyo hadday si kale ku soo gasho iyo qof kale hadday ka soo lacag ka soo dhacdo waa inaad dib ugu celisaa meesheeda haddaad garanaysid haddaad garan weydana waa inaad yabuuhisaa lacagtaas sida caadi sharci u tahay laakiin waxaan ka hadlaynaa labadan mas'alado kale oo ah ma banaan tahay xoolo inaan deensado inaan sadaqaysto asaasku deyntu waa banaanta qof hadaa xoolo ka deensato mas'alada si sharci ah waadixa uga deensato waa ka deensan kartaa deyntu way banaanta oo quraanka daahirkiisa iyo xadiista faraha badan iyo deyn ku soo arto ogteen xoolo wala deensan karaa marka deensanto xoolahaasi ama sadaqayso ama cun ama meel kale geey xoolahaasi deyntu waa xoolaha adigu markaasi aad deensato leedahay weeyaan laakiin waxaan kula talinaa qofka xoolo inta soo deensada sadaqaysanaya inuu maaragtay culayska
hadda wax weyn yihiin wax yaradeeyeen waa iska maal masaakaa timid lacagtii guriga ku jirta xoolaad ku bixin lahayd walaalka ka sii deysatay misla mushkilad ma ama markaasi waxaad gacanta ka bixisadaan haysan qof ka sii qaadat wax ku cuslaynaya ma laakiin haday xooluhu maarto xoolo waa weyn yihiin ee ku cuslaynaya deynta laftigeeda khatar ah hadaysanin maxkii ilaahay xoolo ku siiyo xoolo bix misla hadda waxa kamid ah Sheekh Maxamed uu ka jawaabayay oo ah masalada ribada loo galay oo binaad oo lacagta iga sii dira waa qofku xoolo uusan hayn baa keenay daraadeed inuu wuxuu doonayaa qaraabo xiriiriyo inuu xoolo sii diro dad sii doonay mana hayo xoolihi waxay ku qasbanaysaa ninka xawaalad laha inuu maaragtay lacagta uu ka sii deemiyo ka sii diro ka deensado qaarkood masalada marka laga jawaabayna way xeeladeeyeen ninka xawaalad laha lacag buu meel dhiganaya markaas uu leeyahay qofkii iga sii dira ana deeminayo ku leeyahay laakiin haddii nin kale uu yimaado uu raado deemiya mid kale ka diranaaday ka diran maaye lacagta siin ma deeminayo dadku waa nooc xeeladooyinka kamid ah ayay ma garanaysaa ay ku sameeyaan marka ha iska lifin la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha deyntu waa adagta laftigeedu wax weeyaan deyntu hadaadan awood u lahayn sug ilaahay xoolo markuu ku siiyo subhanahu wa ta'ala masala talana saasan oran lahaa laakiin ta xoolo deysato oo qof caadi xoolo ka deysato masaaka maanta oo kale aad fadhido ka deysato walaalka waa sadaqaysan karaysaa masalada wataas waa midaas weeyaan masalada masalada labaad oo ah dadkan dawarsanaya oo Romania iyo meelaha ka yimaada badana fujidadka fadhiya wax ma siin kara waxaan ku siiyo sadaqa ma yihiin laftigoodu bisadaas hadda ka horaan ka jawaabay Sheekh Maxamedna waa tacliijiyay shirkiyo asada maart shirkiga hada laftiga tamaman ana la weydiiyay su'aash marka dadkan meeshan jooga oo qoontaan u leenahay badanagoodu waa dad daraagis isticmaala bay u badan yihiin qofka muslim kaana si Sheekh Maxamed buu ku tacliijiyay qofka muslim kaana haduu shayga xataa u isticmaalay suxun lama sii karo loo kaalmeyn karayo maarta wala taawanu ala ithmi wal udwan bay noqonaysaa dadkan haday daraagis iyo waxa yaalo u isticmaalaan xoolahaas hasiin oo uu kaalmeyn haduu qof yahay markaas baahan oo duruuf gaar haysto ama deriskaaga ah ama maarta gaal kala ah aad ogtahay inay baahi haysatona qofkaas asxaankaad u sameeyda waa sadaqo insha Allah ta'ala wallahu a'lam جزاك الله خيرا واحسن الله اليك شيخ يوسف شيخ محمد gabadhan waxay leedahay nin baan isku meersanahay waana wada shaqeynaa aniga iyo ninkaba isaga oo aanan ogeyn qof baahan wax ma ka tari karaa ani dabcan xoolaha shaqeysa weeye mise sadaqaysan karaa haddaan se u sheegin ma dhib bay leedahay su'aasha labaad gabadha markii ay xaydo masjidka ma soo geli kartaa lixda maalmood ee shawaalka ee fadliga faraha badan lagu sheegay miga gudaysa lixdii maalmood ee aan xaydka qabay ee ramadaanka iga tagay haddii aan dhex geliyo su'aasha saddexaad diintu maxay ka qabtaa baasaboorka aan wato oo magaca igu qoran uusan ahayn kaygii in aan baasaboorka ku xajiyo بسم الله الرحمن الرحيم midda hore oo ku saabsan inay xaasku xoolihii guriga loogu dhiibay ama biilkii ay wax ka sadaqayso iyadoo ninkeedu uusan ka warhaynin xadiis baa jira Bukhariga Muslimka ku yaalo Nabigu sallallahu alayhi wasallam haday haweentu xoolaha ninkeeda wax ka sadaqayso iyadoo oo wax fasaadinaynin inuu wax kharibaynin ajir buu leeyahay iyaduna intii oo kale leedahay isagoo ajir buu leeyahay uu soo shaqeeyay iyaduna ajir bay leedahay way bixisay xadiid kala jiro oo isagana sugan oo tilmaamaya haday idankiisa la'aantii ku bixiso taasi waa hadduu idankiisa ku bixiso waa haddii idankiisa la'aantii ku bixiso xadiis baa jira tilmaamaya isaguna ajir buu leeyahay iyaduna nisbay leedahay meesha waxa ka muuqata marka way bixin kartaa laakiin waxa ka fiican inay idan guud haysato ama ay ku kalsoon tahay inuusan waxba ka qabin sadaqaynta talabaad waa inayna sadaqada ay bixinayso ayna fasaad keenin oo dhibaato u keenin fasaadka waxa laga wadaa inay wax kharibto waa inay danta ayna ujeedadu ahayn oo dumar baaba qaarka muxuu ahay wax u bixinahayaba inay ninka ku dhibaan
qaar kood waxa laga yaabaa yuusan guursanin bay isleeyihiin markaasay xoolo tirahayaan marka dee taasi sadaqa ma waa nin la xaaluufinayo xiniyaha la jarahayo marka غير مفسد ابو النبي صلى الله عليه وسلم وين wax fasaadinayn talabaad waxoogaga ay bixinayso waa inuu biilka ka go'i karo oo gurigii iyo biilkiisa iyo masruufkiisa waa inaysan dhaawac iyo dhibaato u geysanin quyuuda iyo shuruuda hadii la helo dhib ma leh insha Allah ta'ala su'aasha labaad ee ku saabsan haweenta caadada qabta masaajidka ma fadhiisan kartaa waa mas'ala khilaafiya runtii jumhuurtu waxay qabaan culimada badankood inaysan fadhiisan karin bay u badan yihiin مسألة نص قعد لما أدلة waa lagu muransan yahay mas'alahaana waa lagu muransan yahay saas daradeed waxaan dhihi lahaa duruuf keenta oo laga maarmi waayo inay jirto mooyee ha iska ilaaliso gabadhu laakiin haddii duruufi ay jirto markaasi waxa weeyaan masaladuna ijtihaadiye ay tahay lilxaaja markaas waa la dhihi karayaa masalada xigta ay saddexaadi waxa weeyaan shawaal iyo qallaha qallaa lagugu lahaa qallihii lagugu lahaa lixdii shawaal ee bisha soomi lahayd ee sunnada ahayd ma ka dhigan kartaa oo ma kaa wada gudaysa ma ku wada gudaysa jawaabtu wax weeye maya ma gudayso waa inaad qallihiina gooni u soonto lixdii beriye shawaalna gooni u soonto maxaan saa u leenahay xadiidkan ka qaadanaynaa nabigu wuxuu yidhi sallallahu alayhi wasallam man saama ramadaan وأتبع ثم أتبع 6 من شوال كان كصيام الدهر روحي رمضان صومه لح شوالنا راعية سنة كورن يسوع صومي بكدقين سيكون إيمانيسا لأن الحسنة ب10 أمثاله وحيكون إيمانيسا حسنة هلكي خير مركا الله تماده 10 قور بالغو لبلاوية 10 قور بالغو لبلاوية xisaabta markaad fiiriso bay ku soo baxaysaa fahamka ah in loo baahan yahay ramadaan oo dhameystiran iyo 6 sunno ka baxsan say ku iimaanaysaa markaad ramadaan wada soonto bil baad soontay bishii markii 10 goor lagu laabo waa 10 bilood sooma sanadkii meeqa ka laaban 2 bilood 6 bariyo shawaala markaad soonto 10 lagu dhufto lagu laabo iyaduna waa 2 bilood sooma sidaasaad 12 biloodba ku soonto haddii marka ramadaankii wax kaa dhimanaayeen aan dhahan maalan 6 beri baa kaa dhimanaa 6dii beri baad shawaal soontood qallaysay bil baad markaa soomanta sooma bishii markii 10 lagu dhuftayna waxaad sooman tahay 10 bilood waxaa meeshii weli ka sii maqan 2 bilood baa kaasii dhiman saas daraaddeed xadiidka daahirkiisa waxaa laga fahmayaa bishii ramadaan oo dhameystiran oo 10 bilood u dhiganta iyo 6 beri oo ka baxsan oo 2 bilood u dhigma waa inaad soonto way arinta xigta baasaboorka magacaan ahayn uu ku yaalo ma lagu xajin karaa jawaabteedu wax weeyaan baasaboor la'aan baad xajin kartaa haddaadan baasaboor ba qaadanin ka war oo iska dhuumato xajkaagu ma saxaya waa saxaya sidaas daraaddeed yaa baasabood shardi uga dhigay sideedaba xaj uga dhigay baasabood iyo dukumenti iyo waa wax dib ka yimid xajka shuruudiisana ka mid ma sooma hadduu magaca khaldan yahay iyo hadduu saxan yahay wax ka khuseeya ma jiro masaladaasi ishkaalkeedu wuxuu ka soo baxaan u malaynayaa sheekhana sheekh Umar Faaruq Allahu naxariista ayaa masalada marka jawaabay baa laygu yiri oo muxuu ahay magacaago khaldan ha ku xajin wax soo kala sheekh Umar fatwada laygu yiri wallahu a'lam malaha dhagtiiba dadkii taas ay wada gaarsiiyeen baan u malaynayaa masaladaasi magaca inaad saxan karto waa meesheeda magaca saxo waday ku suuroobi karto magacaagii saxda inaad qaado laana abtir baa ka dhalanaya caruurtaadii document wax badan baa ku xidhan laakiin cibaadaadka saameyn kuma laha adoo magacu ka khaldan yahay waad soo xajin kartaa wax saameynaa kuma yeelanayo wallahu a'lam جزاك الله خيرا واحسن الله اليك شيخ يوسف haddii aan badeeco gado
oo wixii aan soo siistay wax ka badan siiyo labanlaabkeed iyo wax ka badan arrinta riba ma soo gelaysaa? taasi waa su'aasha koowaad. labo, waxaan ahay gabar, waxaa iga dilmay ilmo, dhiiggii waa iga ba'ay, laakiin waa igu soo noqday, salaaddii iyo soonkii maxay noqonaysaa? su'aasha saddexaad, salaada sunnada ah waa rawaatibta saan rajaynaya sida hadalku u dhacayo, dad ayaa sida faralka oo kale waxay israaciyaan 4 ragcadood oo aan u dhaxaynin salaamo naqsi, sida duhurka camal ayay u tukadaan. sheekh, su'aashu waxa weeye ma dhibba ku jirta in la tukado 4 ragco oo isku xigta? su'aal kale, maxay tahay xikmada ku jirto in wax walba midigta laga bilaabo, sida jiifka marka la seexdo, cuntada marka la cunayo, guriga marka la gelayo, masjidka marka la gelayo, midigaysigii sunnada ku soo aroortay ee nabiga sallallahu alayhi wasallam alayhi uu jeclaa, xikmada ka dambaysa maxay tahay? 4taas su'aalood sheekhu soo dhow. ilma iga dilmay, dhiiggii marka iga yimid waa iga ba'ay, haddana dhiig kale haddana iga yimid oo igu soo noqday, marka seebaa salaadii iyo soonkii iyo aan ka yeelayaa? bismillaah. qofku badeecada uu iibinayo masalada koowaad oo ah badeecada haddii qofku uu ribix badan ka helo ama uu laban laabo, dhaladan baan iibinayaa 1 yuuraan ka soo bixiyey, 20 yuuraan gaday, waxa weeyaan wax mushkilaad ma laha, ishkaaliyaad ma laha. qofku waa u furan yahay suuqa ribixa intuu doonto inuu saarto. xaalado gaar ah laga soo reebaaho wixii maaragtay qofku markaasi oo dadka ixtikaar ku samaynayo ama loo dhimanayo ama dhibaato ay jirto, markaas baa la soo dhexgelin karayaa. laakiin sida caadiga ah qofku xor buu u yahay badeecadeesa sicirkeeda. masaladaasi waxa weeyaan xadiista nabigaana ku yimid calayhi salaatu wasalaam, ilaahay baa huwa almusacir subxaanahu wa tacaala. waxaa soo haray dhiigga islaamta caruurtu ka soo dhaceen ama ka soo dilmeen, dhiiggii waa iga go'ay ay tiri maaragtay, oo dee caruurtu hadday yihiin caruur maaragtay soo dhacday oo awal dhiiggii igoo nool ama soo dhaceen oo caruur ah, dhiigga ka yimaadahay dhiiggii ahaa dhalitaanka oo nifaaska hadduu ka go'ayoo la yaqiinay, dhiigga damboo yimaada waan fiirinaynaa. dhiiggaasi inuu yahay dhiiggii caadadii waa dhici karaysa markuu ka go'o caado inay timaado. caadadu calaamaday leedahay oo calaamadaheeda lagu fiiriyaa. islaamtu hadday maaragtay mutacawida ahayd oo horay u caadoon jirtay, dhiiggaasi calaamadihii ay ku taqiinay bay ka fiirinaysaa. kalarka waa lagu gartaa, yacni xagga urka waa lagu gartaa, jirkeeda iyo dareenka way ku garataa, xagga zamanka iyo muddadana waa lagu yaqaanaa. dhiigga caadadu dhiigyada maartay calaamado badan buu uga soocan yahay, oo xataa ma garanaysaa dhiigga uma fariisto sida dhiigyada kale. haddii uu marka caadadii uu noqdo calaamadihii iyo waqtiga caadada uu leeyahay, dee caaday ka dhigaysaa dhiiggaas. haddii uusan calaamadihii caadada uusan lahayn, waxaa laga soo qaadayaa inay maartay waxa dhici kara istixaado iyo dambil faasid uu noqdo. marka cibaadooyinkii waxaan u jeedaa labada xugun, hadduu caadi yahayna cibaadooyinkii waa joojinaysaa, haddii uu maartay dam faasid yahayna waxa weeyaan waa cibaadaysanaysaa oo salaadii iyo way dukanaysaa oo way soomaysaa. masalaas intaas baan odhanayaa uga gudbayaa. masalada afaraad ama saddexaad baan odhan lahaa sunnada oo la dukado 4 ragcadood oo la isku xijiyo oo 4 la dukado. mishkaalkaas wuxuu ka dhashay madhabka xanafiyada ayaa maaragtay sunnooyinka saa isugu xijiya. waxay ka mid tahay aragtidooda. waxaan u malaynayaa dadka qaarkood inay marka arkeen axnaafta saa u sumaysana duhurka 4 ka horeysa inay wada xiriiriyaan, maalan 4 ka dambaysana marka qaarkood ay wada xiriiriyaan. arrintaasi waxba ishkaaliyaad ma laha. asalku waxay tahay salaada laba in la dukado, laakiin hadduu qofku uu xiriiriyo waxba ishkaaliyaad ma laha arrintaasi. riwaayada qaar tilmaama baa jira, laakiin madhabka xanafiyada ayaa noocaas qaba. maxaa wax kasta midigta looga bilaaba oo midigta loo ammaana? annabiyu sala allahu calayhi wasalam
kaana yuxibu tayammun calayhi salaatu wasalaam atayammun nabigu wuxuu jeclaayay wax kastaba khayr ah midigta in lagu qabto cidda tiri maxaa wax kasta midigta loogu qabtaa sax maaha wax kasta in midigta lagu qabto ee waxa fiican in la yiraahdo wax kasta oo wanaagsan in la yiraahdo ergaas sax de waxa xunba bixda lagu qabtaa saxarada bixda la isaga dhaqaa wixii xun ma garanaysa bixda lagu qabtaa laakiin waxa wanaagsan oo baa midigta lagu qabtaa midigta asxaabul yamiin maalinta qiyaamada kitaabka midigta la iska siiyaa qiyaamada ma garanaysa muslimiinta wanaagsan dadka wanaagsan waa asxaabul yamiin weeyaan xaga cilada marka la fiiriyo awalan qofka muuminka ah muslimka ah cilaati ma ahan cilla ma caabudo ee wuxuu caabudaa khaaliq amarka ilaahay buu qaataa subhanahu wa ta'ala inaad shayaalka qaar kood findhicishid oo aad hoos u gashid oo aad tiraahdo cilladu sababtu maxay tahay marka qaar kood waa arrin khatar ah weeyaan taas oo iimaanka khatar ay ku noqoto dhici karaysa muuminka runtaahi allah haduu shayga faro rasuulkiisuna uu sheego calayhi salaatu wasalaam soo gaarsiiyo kabacdi inuu maartay su'aalo kale oo yiraahdo maxay saa u dhacdo maxaa loo yiri waxay tusinaysaa amar qaadasho la'aan amar dawla waa mudac bay yiraahdeen militariga maarta la isku baraa wad qaadanaysaa su'aal ma weydiin karaysa khaliqiku abuuray subhanahu wa ta'ala walahu al-mathalu al-a'la وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم أو أن تكون لهم الخيارة من أمرهم لبقى قرضت بعض حدي الله يا الرسول قوان قاران مؤمنكم مارته دور الشم لها إنه بشيء باربارو علوين كيس صار يرادو سمعنا وأطعنا إنما كان قول المؤمنين إذا يدعوا الله ورسوله يحكم بنا يقولوا سمعنا وأطعنا مؤمنكم إنه يرادو وأنا مقالنا وأنا أجيبني وأنا يلا خير إسرائيل بقرآن كعايي inay yiraahdeen samicna wa asayna waan maqalnay oo waanu diidnay waxa wajeeda misala inaan ku tuwa misala tarbiya ah inuu qofku shayga uu hogaansamo hadii amarka la siiyo asoo wax kasta maskaxdaada iyo maankaagu wax kasta ma wada gaari karaan waxyaalo waxa jira aan maskaxdana maanka gaari karin khulaasatul qawl waxa wajeeda arintaas nuqdadaas waa nuqdad muhiim ah qofka muuminka tusaale dadka qaar kood sigaar dhinba sigaar iska dhaafay dhakhtarka wuxuu ku yiraahdaa sigaarka cabdi kansar baad ka qaadaysaa sigaarku waa iska dhaafay cilada uu gartay oo inuu kansar keenayo sigaarkii kansar uu ka cararayo isaga dhaaf ninna masaladan waxa loo sheegay shariicada islaamka sigaarku inuu xaraan yahay markaas wuxuu isaga dhaafay Allah inuu ka xarimay laba qof masku mid baa marka xaga iimaanka ninna waxa weeyaan wuxuu uga tagay iimaankiisa daraadeed ninna wuxuu uga tagay cabsasho oo naftiisu u cabsanayo iyo waxyaalo kale loo sheegay kana cilada ku xiran yahay kana iimaanka ku xiran yahay waxa la yiri hilibka khansiirka Allah xarimay ahlan wa sahlan waa iska dhaafay إلهي ما دام محرمي ننا waxa lagu yiri khansiirka hilibkiisa bacteria ku jirta dhimanay bacteria soo ka baqayo iska dhaaf ka cabsanay isku mid ma marka bisaas nuqaas waa shunayna ku tarbiyowna ama midigta xageeda waa tafaa'ul bayradan culimadu yo waa maaratay wanaag oo la maaratay hadee jeer wanaaga midigta wanaaga lagu qabtaaho asxaabul yamiin aan noqoto oo ilaahay kitaabka midigtaas iyo ma garanaysa khayraadka waa tafaa'ul bayraadano waa saadaal wanaag hadalka dhikar af Soomaaliga intaas baa oran lahay wixii maartay khaladka sameeyay ilaahay noo dhaafo Sheekh Maxamed baan u dhiibilay جزاك الله خيرا واحسن الله اليك الشيخ سي wanaagsan buu su'aalaha uga jawaabay misalada ku saabsan midigaysiga waa sida uu sheekha sheegay oo adigu mar walba adoon baa tahay wuxuu lagu diray ayad mukallaf ku tahay inaad samayso ilaahayna lama weydiiyo subhanahu wa ta'ala maxay tahay sababta ka dambaysood ii leedahay sida iyada ma aha waalidka lagu caasinayay ma aha dadka xuquuqdooda lagu tumanayay ما ها الديمقراطية ماشى كما فرنا إلهي سبحانه وتعالى وحقود دوري واحد أنت يا مصلحة يكون وجرت أوامرتي صور لنا وحكبنا وحي تهاي سيد الشيخ والنوش جاي سمعنا وأطعنا تكاليف الشرع جاء إن لا ساري أردنا ومصلحة دينا أي أن لا ساري وحن لو دينا مصلحة دينا درادت بين لو دينا أما علة إنه أجانو أما ينا أجانو لكن واجب كنا سارون ومحي إلا هو جان سموي والحق قاركوت مركا قاركوت ayadoo cilalku ay iyo xikmadu ay qarsoon tahay waadan ba tajruba lagu arkaa wax kamid ah waxa laga yaabaa marka qofka miduu baadi goobka ugu jirata inay tahay midigaysiga waliba dhinaca jiifka maran dheerayn baxthi soo socday 20 sano iyo ka badan ba
waxay soo saareen qofka inuu dhinaca midiga u seexdo inay dhaxal siinayso inuu hurdada si wanaagsan uga dhargo daqdigii dhiigga ahaa ee fuuli lahaa haddii uu dhinaca bidix u seexdana uu ka badbaadayo sidaa darteed qofkaasi uu ka fogaanayo kolestaroolka iyo dhiigkarka masaafo intaa la eg ma xasuusto intay ahayd nabigu muxuu nagu yidhi salawatullahi wasalaamu calayhi kaana yucjibuhu tayammun waxaa ka mid a xuquuqda muslimiinta ay isku leeyihiin sidaas si la mid ah tashmiitu alcaatis qofka hindhisay ee alxamdulilah yidhaahdo in la yidhaahdo yarxamuka allah macnaheed macnaheed haddaan dhaha ka warrama sheekh maxamed cabdilwal baa maanta noo yimid yarxamuhullah haddaan dhaho maxaa la leeyahay wadaadku maanta waa sidee kafe badan miyaa cabay soo ma yarxamuka allah yaa la yidhaahdaa qof dhintay soo maa yacni qofka kan inuu hindhiso qofku waana qufici karaa waana hindhisi karaa waana halaaqyoon karaa markuu qufaco iyo markuu halaaqyooda lama dhihin alxamdulilah ha yidhaahdo isagana yarxamukallah lagu yidhaahdo limaada markuu hindhiso lisma weydiinaya waa inaad amarka fulisaa waxay yidhahdeen qofka markuu hindhiso wuxuu marayaa xaalad khatiir jiddan jiddan bilmara khatiira lilghaaya xaaladaasu waxa ay tahay ajhizadiisa oo dhan gudaha ku jirta baa shaqada gabayso istaagaysa wadnihii baa istaagaya sakankaas wadna hadduu istaago qofka see noqdaa sooma dhinto oo beerkii baa istaagaya oo keliyihii baa istaagaya oo akramakumullah xitaa haddii uu suuliga ku jiro oo uu ama waday maxaan ku dhahaa xaajadiisa intaa yartuu hindhisaya wuxuu waa istaagayaan waxaadse wada ogsoontihiin dhammaantiin qofka markuu hindhisaya isagoo indhaha kala hayo oo wac ah ma hindhisay indhaha intaa yarta waa isku qabtaa soo maa maskaxda lafteeda indhahay isku qabsataa baa la yidhi intaa yarta macnaheeda waa maxay qofka isaga ah xaalad mawd ah oo sakan ama ka yar buu marayaa qofkii marka inta naftiisii oo dhan la qabtay oo la joojiyey dhaqdhaqaaqiisii oo idil haddana loo saamaxay inuu nolosha sii wato ilaahay sii caabudo miyaysan u beegtoonayn alxamdulilah inuu yidhaahdo haa iyo maya ninkii meeshaa ka soo noqday halistaa inaan annaguna ku nirahno allah ku naxariiso soo nama qabato sidaa darteed xikmadu waxay kaaga eg tahay inaad tidhaahdo ilaahay wuxuu waxa kan u amray lixikmatin baaliqatin qadaaha xikmo xeel dheer oo aynagu cilmigaynu gaarsiinayn waxa ku saaran laakiin waa maxay yeel marka lagu yidhaahdo waana calaaqada ka dhaxayso qofka mu'minka iyo naska wey inuu qofku u hoggaansamo saasaynu muslimiin kuna marka insha allahu tacaala waa intii sheekha uu sheegay laakiin inta tan waxaan ugu kabayey su'aalo cilmi ah jawaabtooda haddii aad raadinaysaan inaan waxa way ku biiriyin su'aasha kale sheekhu waxa uu leeyahay sheekh maxamed ma cuni karaa digaaga lagu iibsho supermarketka taasi waa su'aasha xigta waxa ay tahay maxay tahay salaada la yiraahdo salaadu tasaabiix sideese loo tukadaa sharcigiisa muxuu ka qabaa su'aasha saddexaad haddii aan keenay reerkayga waddanka kan reer galbeedka oo aan rabo inaan dib u noqdo haddii carruurtii oo qaangaadhay ay idiidaan oo aan la noqdo kuwa yaryar si ay wuxuun igu badbaadaan arrintaa iyada ah ma ii bannaantay mise waa kulli inaan salka ka xaaqa wey su'aasha xigta weeye waxa uu leeyahay maxay diinta islaamku ka qabtaa in qofka saaxiib wakhti dheer lala ahaado oo lala xiriirsanaado iyadoo guur la kala doonayo maadaama aanan haysanin awood aan isku guursanno yacni saaxiibba ma lahaan karaa bismillahi raxmaan raxiim su-aasha hore ku saabsan hilibka digaagta subermarketyada laga iibsado shaqiis baan u daynayaa taayada ahlumaka adra bishacaabiha wadaadadiinaa yaqaana haddaad nairobi weydiin lahaydeen waa ka jawaabi yurub iyo wadcigeeda iyo hilbaheeda iyo maxaa xalaala maxaan xaaraama taa shaqiis baan uga tegaya insha allah ta kale salaadu tasaabiix waa salaad soo aroortay axaadiista qaar ka mida ku timid xadiistaasi ma sugan tahay mise ma sugnaa la isku khilaafsan yahay xadiis cabaas ibni cabdilmuطalib laga warinayo culimmada qaar waxay leeyihiin ma sugna salaadaas xadiista way daciifinayaan qaarna xadiista way sugayaanoo waxay leeyihin salaadaasi way sugantahay qaabkee loo tukadaa waa 2 ragcadood oo subxaanallahidu ay ku badan tahay tasbiixdaa ku badan taqriiban halkii ragcadba
waxaan u malaynayaa 75 miyaa ku jirta subxaanallahi baa ku jirta afar miyaa mise laba way afar ragcadood afar ragcadood yani 300 oo tasbiixood bay isla noqonayaan baan filaya marka salaada noocaasa laba la tukadaa haddana laba la tukadaa xadiisku siduu tilmaamayo ruuxu cimrigiisa hal mar hadduu tukan karo cimrigiisa hal mar haddii kale sanadkii hal mar kasii fiican hadduu bishii hal mar haddii uu maalan maalinkii hal mar usbuucii hal mar kolba say ugu suuroobi karto inuu u tukado xadiidka sixadiisana waa la isku khilaafsan yahay salaaduna waa noocaas su-aasha xigta oo ah carruurtii intii waaweynaatay haddaan kari waayo inta yaryarka ah ma la carari karaa dee jawaabtu waxa weeye caanadaatay dabadoodaa la qabtaaye haddii intii waaweynaed ay kaa tageen oo kari weyday ha ku daba dhimanin ya wixii aad badbaadsan kartoo badbaadso oo intaad la tegi karta la tag ayagana ilaahay u soo bari in yaroo kuu badbaada haddaad heshaba nasiibka rag baaba waxba u badbaadi waaye oo isagoo 60 jir 70 jir keligii intuu soo noqdo meelaha annagaa yimaado iyo wuxuu leeyahay bal hadda waxaa la ii raadiyay hadda wax abuurayaa kulli wuxuu abuurayna meeshanuu kaga tegay kala tage oo kala carare oo balaa waxaasay kala raaceen marka adiga haddaad qaar badbaadsan kartaba qaarka la carar intaa badbaadso shariicadu waxay leedahay sax kuwan mas-uuliyad baa kaa saarnayd shakina male inaad sabab ku leedahay oo dembigoodaad wax ku leedahay laakiin dee dhibaato hadday dhacdo dhibaatada lama sii kordhiyo waa la khafiifiyaa wixii aad khafiifin karto marka iyagana ilaahay u bari ilaahay inuu hanuuniyo inta aad badbaadin karta yaryarna badbaadi baan ku dhihi lahaa tan kaleoo ku saabsan saaxiibnimada guurka ka horaysa haddana iska dheer tabarna waa la isu laaya anu ma aqaano diintana kuma arkin dad ajnabiya oo saaxiiba ah oo rag iyo dumar ah rag iyo dumar saaxiibbaan nahay ajnabina waan kala nahay luuqadaasaabaan saxsanaynba asalba saaxiib shareecadu waxay tidhaahdaa oo u isticmaashaa ninka iyo xaaskiisa wa saaxibatihi wa baniih saaxiibtaa waa xaaskaaga laakiin naag ajnabi kaa saaxiibkuu ma ah shaqana iskuma lihi luuqadaasi waa luuqadda meeshan isticmaalka halkanay ka turjumaysa ma saxsana labada ruux waxaa loo ogol yahay hadday guur iska damacsan yihiin inay is arkaan oy kulmaan isku qancaan dabcan wada hadlaan waa u bannaan tahay laakiin intaa wixii ka dambeeya inay guurkii ka gudagalaan ama intay ka helahayaan wax uga suuroobahayo sidaa ku kala joogaan laakiin xidhiidhka saaxiibnimo oo laga yaabo inuuba saaxiibnimada ka gudbo oo xidhiidh caadiya ka gudbo oon ogsoonahay dhallinyaradu meesha ayadaa inay ku fitnowdo oo aafaad fara badan ka dhashaan arrintaasi waa sharcan mamnuuc waaye leanna shareecadeennu xikmaddeeday ka mid tahay dhibaatadu intaynan dhicin bay ka hor tagtaa guriga intay riddiisa laguu furo ha gelin lagu dhihi maayo tay riddii waaba furanaysa oo iska geli maysid ma iriddana waa lagaa xidhi ha gelinna waa lagu dhihi soo ma yacni dembi macsiyada iyo zinada dhicitaankeeda intayna dhicin baa laga taxadaraya isha laaba muxuu ahaay khalwada iyo gooni noqoshada dumarkii ajnabi kala fogaada isdhexgalka muxuu ahaay sheekada iyo hasaawaha khaldan kullu daalika waxaa laga taxadarayaa xumaanta dhicitaankeeda marka arrintaasi halisteeday leedahay runtii dad badanna waa ku hallaabeen waxayna sabab u noqotaa dhallinyaradu inay runtii isku kharibanto ayay marar badan sabab u noqotaa ama si kaleba ay khalad u galaan wallahu aclam
جزاك الله خيرا وأحسن الله إليك. شيخ يوسف سؤال شيخ عمر سوعلي معوني كرا دقاق اللقو يبشو سوبر ماركت يده هذه أذكر إن شاء الله تعالى. سائل كان وحاول لي هاي وسؤال الله بعد وحنا هاي أرضي بدنا أنا مهليلو صلاة الجمعة marka maxay ka qabtaa diinta inaan duhur caadi ah iska tukada maalinka jimcada ma bannaan tahay in aan markasta qofkii aan wax isku qabanaba ugu dhaarto magaca alle anigu doonayay inaan qanciyo. saailkan kale waxa uu leeyahay lacagta caydha ah aan qaato sadaqa hadii aan ka bixiyo ajir ma ka helayaa waalidkay hadii aan xajka uga dirase ma bannaan tahay diintu maxay ka qabtaa caruurta aad dhashay inaad u dirtay iskuul ay la dhigtaan caruur gaala ah. waxaan u malaynayaa su'aalihii Yurub oo dhan sheekh Yuusuf bay dhinaciisa noqdeen mar hadduu sheekh Umar iska riixay. bismillah dheeg dhur way ku ogi weeyaan masalada ah supermarketka hilbaha digaaga ma cuni karaa supermarketka hilbaha lagu iibiyaa digaaga Yurub san ognahay ama wadamadan lama gowracinin wada sharci lagu ma gowracinin وبالتالي هدي أن لجورعين مارت نفكا وحران عنتانكس ولا نجاس حران وأيان ولا نجاس سيد سبب نفكو بختجا أما أن لجورعين مساش قاركو ذكر قروحي كليه قال وضعام الذين أوتوا الكتاب من قبلكم بكمتها ضعام الذين أوتوا الكتاب وأيان وضعام الذين أوتوا الكتاب حلوتش إذا أهل الكتاب كوحي جورعين بهلوتش إذا لكن ما أهن هيدب كسيسن جورعين أهل الكتاب قفك نوع الشبهة فافية مركز ويديسيد قفك مؤمن مسلم كاهي نفكو عيتيو نفتك قاعدو كورن وحرام بكورنيا اوكي متك اهل الكتاب كو عيتي نفتك قاعده كورن حلال بورنيا سوما ومشكله وين marka hadii muuminkiiba haduu ku ciijiyo ilaahay xarimay gaar midku ciijiyo waa ka sii daray والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع لما أنت نفك الجراعي مثل الدليل لما أنت حرام وبختي بالقرآن كشاجة بختي حرام هم نقدر حتى هو نجاس أصل كيدنا هالبها يو دم مركبة أصل كحرام تأصل واحد سادرت إذا قف كلبك وعنا يو وإنه أسكاب في أدوة تحدره لأنه أصل وضن كمحبل لما تجورعه ودل إيو كورنتو على الجريه وياه إنه هو مارتي حوله سفي على لوج ورعي وعنه الحمد لله هالبيوة بديهم لورد من مايو بحويان كلون إيام ملاينا ملك استيالين راشنكو واسكب بوحة تلاجدو ويب بوحان بحويان ما أنت وحاد الله لورد من أيو ماشي ميالين أو ما أنت ضرورة يدباتوين وما هي صدق ماشي نشوجا هالباحة جودة بسرعة أنت أسبان هو جود بيا صلاة الجمعة مثلا الله صلاة الجمعة وهدي أن صلاة الجمعة واشق إياه كما سو جاري كرأه إن الظهر اسكدوا كذا ملاي هاي صلاة الجمعة قفك مقيم كه قفك فيو قانجار كه عن مسافر كهين حر كه ودن كان دجن صلاة الجمعة واجب بكتها وفرض عين صلاة ظهرنا معه جمعة صلاة جمعة اللي يراد الدكذا ما أنت جمعة الدور لما الدكذا سيدا بقى صلاة داسنا إلهنا واجبية سبحانه وتعالى فرض عين وركده يقفك نوع عن شاقني هذا يقفك أو الشقاق كتيره شقاقه كيني ميسو صلاة الظهر صلاة الجمعة إنه كقاعده أو مارتا شقاق درتي أوغتي كريو قرآن كسيدة إلهي ظاهر كي سفيرية إلى وحوليه يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله معنا وذروا شغض بيع وشغمة وذروا البيع بإلهي سبحانه وتعالى بيع أنا مارك كتجا بس هذه لا أدي مضور هذه لا أدي ما جمعة شغض بيع وشغو شغض وقت جاي ترتبى قناع السجاية هذه إلهي سبحانه وتعالى أمرنا قناع السجاية كتجنا مال أنت أسي جمعة واحد شقيسته وحاران مكسر هذا الدكانين واحد شقيسته وحرام ويان صلاة الجمعة أنا واجب بيكو قطعي
haddii aad tiraahdo duruufta waddankan waan ogahay way jirtaa laakiin waxaan talaa idinku siinayaa waddankan duruuftiisa haddii aan siday tahay ula dhaqanno oo ilaahay aan ka cabsanno ilaahay faraj buu inoo furayaa waman yattaqi allaha yajcal lahu makhrajan wayarzuqhu min xaysu laa yaxtasib waxaan idhahdaa had iyo jeer muslimiinta yurubtan degan jarmalka iyo denmark iyo skandinafiyanka iyo meelahan degan markay yimaadeen shaqooyinka ay qabanayaan hadday runta u sheegi lahaayeen anaga jumcaan dukadaa saacadaas jumcada kuma jirto shaqada qaban maayo mar horey maaragtay asalka loo ogolaan lahaa inay jumcada ninkan waa muslim ha loo daayo jumciis la odhan lahaa laakiin mushkilad waxay ka dhacday dadku inaysan in badan oo ka mid ah aysan kala jeclayn saa darteeda waxaan odhan lahaa qofku markuu gelayo heshiiskaba ha u sheego inuu dukado salaada jumcada waddaas waxay noqonaysaa waddo wanaagsan dadka kale aan u furto oo ma garanaysa lagu xisaabtamo haddii kale sidii ninkii cigaal shidaad laga sheegay ayaa noqonaynaa sanka inta suuxaanya ka martay baa la ooyey markaa la ooydaa layidhi suuxaanya dadka ma cuntee markaasuu waxaan ogaynay sun cune sankaygan waxaan ka baqawra halaq mareen inuu noqdo yacni si boollo ah oo sahlan baa lagu marsiinaya muslimiinta laakiin haddaan meel soo wataagaan yidhahdeen jumcadu waa jumco yuhuud baa loo daayay sabti siiqsiiqa maaragtay ciidamada ingiriiska baalkiisa weyn waa muqadas lama taabto isagoo booliskiisa maxaa yeelay erey adag bay leeyihin arrintan waasaan waa diin weeyaan marka muslimiinta oonbaa maarata boollo iska noqday mooyaane oo arrintan maarata la iska marsadaa maahane ummadaha mabda'a le lama mari karayo xaqiiqatan meel laga soo wajeestaan awooddiinna iyo shaqadiinna iyo intaa la egtihiin awood baan naha muslimiinta xaqiiqa jirta weeyaan marka masaladaas waxaan odhan lahaa yaysan gorgorka gelin masalada labaadan maaragtay saddexaad xoolaha maxaa la yidhi xoolaha cayda haa xoolaha oo maaragtay cayda wax ma ka sadaqaysan karayaa mase ka xajin karayaa waxaan leeyahay xoolaha qofku ou qaato oo la yidhaahdo maaragtay dowladdu ay qofkan shaqada haysan ay siido xoolahaasi mulkigiisi weyn qofku waa milkiyey isagaa iska leh qaanuunkuna maaragtay wuu ogol yahay sida la yaqaanona shayguu milkiyo tasarufkiisana waa leeyahay haddaad sadaqaysato iyo haddaad ku xajido iyo haddaad xoogaa meel dhigato intaba mulkigiisa adaa leh xoolaha waxay kugu soo galeen wadda saxa marka waana ku xajin kartaa waana sadaqaysan kartaa maaragtay maalig baana tahay oo wadda sax ah ayaa xoolahan kugu soo galeen qaacidada asalkana waxa weeye waa mulkigayda waa ansaxayaa carruurtayda waxaan u diray iskuul maaragtay dad kale ay dhigtaan oo aan islaam ahayn oo maxal kala haysiinad su'aal badan weyda ma cirkaan rijiyeynaa carruurtiina ma meel kale aad u dirtiin soo intaanada meesha fadhidaba waddankan deganna carruurta maxaa sheegaysaa annaga iyo xaasaskanaga iyo carruurtanada de waxa weeyaan soo uma dirno xaggee baan maarata ma cirkaan rijiyeynaa masaladaani markaa waa masalo waaqiciyo jirta haddaan laga carar karaynin laga maaragtay jirta weeyaan laakiin su-aashu waxay tahay inaan isku dayno sidii aan maaragtay dhibaatada ay leedahay fikradahaas iyo maaragtay saaxiibada xun sidaan u daaweyn lahayn oo wax ugu qaban lahayn taas baa muhiimku inoo tahay si aan u xallinaa ee masalada ma bannaantahay mase ma bannaana maanta waxba weyn nooguma jirto laanna waa badweyn nin ku fajira nin ku dhacay badweyn dhexda fadhiya badda ma geli kara inuu yidhaahdo waxa weeyaan waa masalad maaragtay wajiha ma ah laakiin inuu yidhaahdo badweynta see uga bixi karnaa waxaan u malayn doonaa badweynta see uga bixi karnaana nadwa ku aadanaan doonta in sha allahu tacaala mawduucaas wallahu aclam jazaaka allahu khayran waaxsan allahu ilayk sheekh maxamed waxaan qabaa dayn aan dadkeedii aanan ogayn meel ay ku dambeeyeen oo ay ka mid tahay ruux gaal ah sideen ku bixin karaa taas waa midda xigta waxa ay tahay haddii aan qaraabada xiriiriyo si aanan awood u lahayn in aan wax siiyo arrintaa ma ku dambaabaya awood darradayda ah su-aasha saddexaad ninka muslimka ahee dharka dhaadheer ee sarwaalkiisa ama qamiiskiisu uu ka hooseeyo anqowga salaadda ma laga aqbalayaa su-aasha xigta sheekh magacayga waa moxamed waxaan janalka aljaziira laga soo saaray oo aan ka daawaday soomaali gaalowday oo ku nool dhadhaab oo gaaraya 600 qof
haddii aad tihiin culimmada Kenya ma ogtihiin haddii aad ogtihiin se wax ma ka qabateen hooyo Soomaaliyeed waxay ku weydiinaysaa dadka gaalada ah waxay barteen salaanta islaamka assalaamu calaykum wayna nagu yiraahdaan mararka qaarkood baa anigu aan iska jirin baan wa calaykum assalaam dhaha maxaan ugu jawaabaynaa inaan sidaa iraahdo diinta maxay ka qabtaa فليتفضل مشكورا شيخ محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. سؤال شهر حولها كسوق قلي عندي لهيدنا هذا قرنين أما قال هالنقطة ومسلم هالنقطة سياد كل هذه السادة هذا قرنين والصدقين عندي إسكالة هيد أي صدقة وتحت waxaa lagu bixinayaa masaalixda iyo danaha guud ee ummadda jidadka مثلا isbitaalada goobaha caafimaadka ceelasha masaakiintan oo la siin kara taas sidaas loola macaamulanayo su'aasha xigta qaraabadaydii inaan xiriiriyaan rabaa waxna ma hayo dhaqan wanaagsan iyo hadal wanaagsan ku xiriiri hadaadan waxba u heli karin laazim aha hadaadan waxba haynin waxaadan haynin ilaahay kuguma kallifo laa yukallifu Allahu nafsan illa ma aataaha naf ilaahay ma kallifo wuxuu siiye waxaan ahayn kuma kallifo marka waxaad kari karto iyo awoodaada ha kala bakhaylin waxaadan kari karinna laguma saarin oo lagu dhimaayo ilaa iskallif ma lagu dhahayo inta tabartaada un baad wixii gacan ah iyo wax bixin ah laakiin qaraabo xiriirintu ma aha oo kaliyeeta wax bixin ma qaraabo xiriirintu salaantaas ka warhaynta muxuu ahay waxyaalo badan baa soo galaya xataa haddii dadku ku tuunsan yihiin oo dadkiina dibadaha soo jira dadkii xagga jiray waxay ka rumaysan yihiin inaad uun muxuu ahay khasnado dollar ku fadhidaan oo waxba la idinka rumaysan yahay taa lafteeda inaad qarxin karto isku dayo oo cudur daaro sida Ilaahay Quraanka ku sheegay ruuxa wax ku weydiisanaya haddaad waxba u haynin hadalka wanaajib waa la yiri tabaaraka wa taala sooma hadal wanaagsan intaas wax dhan qodobka xigay ruuxa musbilka asalaadiis musbilka wax la yiraahdaa asalahan labiskeena waxyaalaha shariicadeenu ay nidaamka ka dejisay buu kamid yahay ragga labiskiisa iyo dumarka labiskooda haddaan nahay ragga muslimiinta labiskeena ama sarwaal ha noqdo ama macawis ha noqoto ama khamiis ha noqdo lama ogola inuu aanqowga hoos u dhaafo aanqowga inuu hoos u dhaafo soo aanqowga lama fahmay maxaa la dhahaa qarqoob iyo anqow waa kala duwan yihiin waxaan tegey adiga saad u taqaaneen inaad fahanteen baa muhim sidaad ruuxba u yaqaano hadda ka hor baa waxaan tegey sanadkii dhoweyd waxay raalli hada sanadkii dhoweyd safartaydii aan ku maray qaybo ka mida deegaanada Soomaalida baan markaan marayay magaalada Shinile ayaan malaha su'aashan miyaa la weydiiyey marka waxaan ka hadlay xadiidka waxaan idhi marka aanqow reeshinile marka aanqow way fahmi waayeen marka Soomaalidu qaar bas u yaqaan war maxaad u taqaanaa maariyo kelime ii sheeg waa alma wahad Quraan miye Quraan iyo aanqow iyo waka reeshinile miyaa ma fadhiyaan miyaa saasay marka Quraan dheh aanqow dheh halkaas la inoo ogol yahay maradeen iyo labiskeenu inuu gaadho haddaan ragna wixii ka hooseeya la inoo ogol nabiga wuxuu sallallahu alayhi wasallam ninka muslimka ah labiskiisu waa ilaa dhudhunka dhexdiisa wixii dhaafa waa ilaa aanqowga wixii ka hoos mara waa naar
marka lama ogola haddaad xaraga kibir iyo xaraga iyo kibir ku dartana iyadu cuqubadu intaa waa ka sii culusta oo ilaahay ma fiirinayo uma naxariisanayo baa soo gelaysa ma daahirinayo maalinta qiyaamada marka waa arrin runtii dadka intooda badan aad isaga fududaystaanoo sarwaaladeenna dhulka xaaqahaya iyo macawisaha iyo waa arrin dhibkeeda la waa fududaysanaa dadkeenna qaar ka mida waxayba leeyihiinba sheekh aniga kibiriga ma waxaana kibir baa loo diiday xadiid baa jira nabigu leeyahay sallallahu alayhi wasallam al-isbaalu min al-makhila ya inaad marada hoos aanqowga hoos uga dhigto baaba kibiraba lafteedu nabigu ku sheegay inay kibir tahay sallallahu alayhi wasallam marka marada kor u qaat salaada waa ruuso socdaay horta tan aan ka dhaco marada halka kor ha looga qaado aanqowga ku ekay hadii kale kor u qaado waxba kooguma fadhido ilaa halka geysato salada labaad waa salaadiisu ma saxaysa xadiid baa jira dhahaya ruuxa maradiisu hooseyso oo halka ka hooseyso salaadiisa ilaahay ma aqbalay Abu Daawud iyo qeyrkii waa soo saaray waa xadiis daciif oo sugnay xadiiska dhahaya salaada ma la aqbalayo ma sugna salaadu waa saxaysa laakiin waa dambi sidiisa u madax banaan waxa la yaab leh dadku way ku baraarugsan yihiin arrintaas inay khaldanto waxaad ku garan sidii sarwaalku ugu siidaysan yahay markay masaajidka soo galaan oo tukan rabaan baa kulli la laalaabi wala jabinaya taana xadiis baa idin haysta oo Bukhariga waxa ku yaala xadiis nabigu leeyahay sallallahu alayhi wasallam rasuulku wuxuu reebay salaada in maryaha la laabo iyo timaha yani timaha dheer ee siidaysan markay soo raaracsamaan inaad celiso lama ogola marada laalaadana in la celiyo lama ogola marka aduu si yeelad inaad laabtana laguma ogola inaad siidaysana laguma ogola kor u kaadi marka ya dhigi kor u kaajay wadaadana wareeriyo Soomaa adaa is wareeriyo marka marada gaabsada oo waa sunnadii hadigii nabigeena sallallahu alayhi wasallam laakiin salaadu waa saxaysa waxa ku xigay warkan jaziira soo daysay oo xiriyaha dhadhaab Soomaalidu degantay qaxootiyada dad gaaloobay oo ridoobay baa yaa laga soo guuriyay warka ma maqlin laakiin waa wax jiri kara oo dadku waad garanaysaan oo waa dadkeenii iska baahnaa ummad iska baahan oo gaajaysan baa meesha joogta hay'ado wax kale aan ka shaqaynina way joogaan hay'adaha meesha jooga dadka u tagay way qaybsamaan qarna waa la yaqaan shaqada ay qabtaan laakiin tomanaal waxa jooga shaqo ay qabanayaan la garanay hoosta ka shaqaysanay marka qaar waxa jira kristaamaynta qaabilsan oo hoosta dadka ka guranay dadkii marka waa iska baahan yihiin waa gaajaysan yihiin inta badan waxa lagu duufsanayaa waa lagu qaadi meeshanaad ku rafaadsantihiin baa loo gaaloobaya meeshanaad ku kadaysantihiin baa loo gaaloobaya waa jiraan marka laga soo tago xiriyaha qaxootiga Nairobi oo kale kaniisad baa jirta Soomaalidu ku leedahay oo la yaqaano dadka gala Soomaali baa u badan ridowdo diinta ka baxday rag odayaal oo idaacada ay leeyihiin ay ka hadlaan oo diinta ka faafiyaan waxay leeyihiin rag culimo oo kala u ah Soomaali ah isbitaalada looga faa'iideystaa oo isbitaalada missionka sida mid la yiraahdo Nasred iyo mid la yiraahdo Kikuyu oo isagana indhaha qala iyo mid kale oo la yiraahdo Kijabi oo isagana lafaha iyo waxa lagu qala iyo markay yimaadaan oo dadka lagu daaweynayo kaniisadii baa ka shaqeynaya ruuxii intuu sariirta jiifo waxa loo gudbinayaa baashi marka dad badan baa gaaloobaya oo diinta ka baxaya laakiin waxaan hubaa in badan oo kamid ah hunguri baa u geynaya mooye kumayna qancin saas daraadeed markay soo tagaan oo meeshan ku soo gaadhaan way isaga tagaan qaar badan laana ujeedadu waxay ahayd aad ku jid martid aafadaasi marka way jirtaa halkan kaliya maaha qaxootiga kaliya maaha Kenya kaliya maaha xataa wadankii bay ka jirtaa wax badan baa qarsoon oo waxan banaanka lagu abuuray gudahana waxba lagu abuuray waa la kala shaqaysanayaa adiga waa la kala shaqaysanayaa ilaan bilaash ma wax caalamkani wax bilaash ma jiro
marka maxaad ka qabateen qolayda wacyi gelinta wax badan oo waxa la qaban karaa waa in dadka la baraarujiyo la wacyi geliyo inta ka badan oo muxuu ahaayay runtii la sameyn karaa ma jirto baahida iyo dhibka aad u weyn su'aasha u dambaysa waxa weeyaan haddii gaalku salaamo ruuxan muslim ahayn assalaamu calaykum ku yiraahdo maxaa loogu jawaabayaa nabigu wuxuu sallallahu alayhi wasallam wa calaykum ugu jawaaba wa calaykum وعليكم وعليكم تاسي هدي أي كل فهمان مرمر بالغية وإني فهمان وقرتان وقاتان هبار والله فاها وقبق يا دباتيني كاسو قاعد هداد كبقضو مركا وعليكم السلام اسكده لكن الصلاحان سلامتود وعليكم وعليكم culimada qaar baa tafsiirka la gelinaya waxay leeyihiin hadaad hubsato inay salaan saxa ku salaameen oo assalaamu calaykum wa calaykum assalaam ina tiraada dib kuma jira qaar baa dhahaya hadaad ka shakido waxay ku dhaheen baad markaa wa calaykum dhahaysaa culimada qaar saa dhahaya waa jiraan laakiin badankood waxay qabaan inaan la salaami karin salaanta wa calaykum assalaam calaykum assalaam maxay tahay nabadi korkaaga ha ahaato salaamtaasi waxay xambaarsan tahay macna qaaliya saas daraaddeed nabigeena sallallahu alayhi wasallam markuu hiriqla ninkii la dhihi jiray boqorkii Room markuu waraaqda u diray oo dhambaalkii u diray oo diinta ugu yeedhayay nabigu sallallahu alayhi wasallam ma dhihin assalaamu alaykum ma dhihin laakiin wuxuu yiri assalaamu ala man ittaba'a al-huda assalaamu ala man ittaba'a al-huda salaanta waxa iska leh dadka muuminiinta ee ilaahay hanuunkiisa raacay marka asalku waa inaadan wa alaykum assalaam dhih allahumma dhuruuf khaasaday timaada meesheeda wallahu a'lam جزاك الله خيرا وأحسن الله إليك شيخ محمد عبد أمل سائلكم waxa uu leeyahay ama waxaan u maraynayaa qof dumar inay tahay waxaan ka shaqeeyaa meesha lagu xanaaneeyo Sheekh Yuusuf baa su'aalahan iska leh meesha lagu xanaaneeyo dadka waaweyn ma dhaqi karaa ragga waaweyn ma u qabeyn karaa dharka ma ka bedeli karaa taasi waa su'aasha xigta waxa ay tahay walaal waxaan deganahay meel halkan u jirta 2 saacadood maxramna ila ma socdo marka hadii aan imi halkan khayrku ka socdo ma dhib iga soo gaaraya tareenka sama ku tukan kara salaada su'aasha saddexaad waxa ay leedahay waxaan ahay gabar dhalinyaro ah 14 casho ayaa dhiig iga socdaa salaadii ma tukan karaa mana soomi karaa 14 casho dhiig socda way ma sheegin gabadh dhalinyarana hay bitir saailkan waxa uu leeyahay sheekh waxaan rabaa shawaalka miyaa la israacinaya 6 maalmood mise waa la kala jarjari karaa su'aasha ugu dambaysa saailku waxa uu leeyahay sheekh 2 gabdhood oo walaalahay ah oo ay qabaan niman gaala ah ma xiriirin karaa iyaga iyo ilmahooda ma se umartii karaa سؤاله رأي ربا شيخ ويسان مرين هيا سؤاله شيخ يوسف بسم الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد سؤال شكو هذا يقول قفك الدادة محيهد dadka waaweyn dadka waaweyn ayaan ka shaqeeyaa shaqada la qabto dadka waaweyn waxa weeyaan in loo mayro in raashin la siiyo in ma garanaysa la xanaaneeyo in xafaayad qaarkood loo xiro in ma garanaysa marka qaarkood khamr la siiyo hilib doofaar la siiyo iyo wixii la halmaala oo nooca shaqooyinka noocaas oo kale ah xaqiiqatan waxaan oran lahaa in qofka muslimka ah had iyo jeer mihnada uu dooranayo iyo shaqada uu dooranayo inuu ka shaqeeyo uu dooranayaa inay noqoto shaqo oo kuf u yahay Soomaalidu waqtigii hore waa ka faani jireen shaqooyinka qaar boo xalaal ah laga faani jiray laakiin maanta maaragtay shaqooyin aan sharciga waafaqsanayn oo xalaal aan ahayn in maaragtay
dumarkii waliba rag bay taas waliba dumarkii cafiifaadka ah oo muxajabaadka ah ay maaratay nin waayeel ah oo ka ajnabi ah rag qaar nool baa ku jira daa waayeelka inay maaratay u mayrmayraan oo ay u shaqeeyaan arrintaasi waa shaqo aad dani oo hor shaqo liidata weeyaan aqli ahaan markaad maaratay iyo islaam ahaan qofka muslimkana shaqadiisa iyo mihnadiisa meel wanaagsan oo ka doodo ilaahay yani muslimku sharaf buu leeyahay ilaahay agtiisa subxaanahu wa tacaala waa misalo gabar muslimada inay nin weyn oo ajnabi ka ah u mayrmayrto waxa u bannaynayaahi waxa weeyaan ma jiraan ilaahay baa risqiga haysta lana dhiman maayo qofkuna hadda raashinkaaga ilaahay baa kuu qorayo raashinkaagu iyo biilkaagu ciwaankaaga adiga waa kaa ugu ogyahay nabigeena ka sugnaatay calayhi salaatu wasalaam inuu yidhi ilaahay wuxuu qoray naf inaysan dhimanayn xataa tastakmila risqaha risqigaaga ilaahay baa kuu qoray waa isku meeshii haddaad waddo wanaagsan ku doorato iyo haddaad waddo xun ku doonato kullaytuba risqi waa lagu qoraya laakiin waddada aday kugu xihan tahay aad u raadsanaysa waxaad odhan lahaa marka baaraka allahu fiikum gabdhaha muslimaadka ah yaan loo dirin meelahaas oo kale raggu ha u qaraabeen biil ha u goobeen baaho haddaad doonaysid xoogay duruuf aad kula gudboonaysa laakiin waa ka gudbaysaa meel wanaagsan doono ilahay baa risqi kusinaya subxaana wa tacaala qofka alla ka baqana ilaahay waa u furaa risqigoo waxaad ogtihiin hadda aydan akrinaya waman yattaqi allaha yajcal lahu makhrajan wayarzuqu min xaysu laa yaxtasib qofka ilahay ka baqa ka cabsada ilahay risqigiisa meel wanaagsan buu uga furaa waman taraka shayan lilah cawadahu allahu khayran minhu ilahay darsi qofka wax uga taga ilahay wax ka wanaagsan buu ugu bedelaa subxaana wa tacaala sida nabigeenu yidhi calayhi salaatu wasalaam marka masaladan waxaan leeyahay masale akhlaaqiyaada ma aha masale sharaf muslimka waa ma aha masale inugu habboon ma aha gabar muxajabada ah oo maaratay cid kale maarata oday ah maarata u meermeerta sax maan arrintaas haddii ay duruufo adag timaado raggu rag ha u shaqeeyeen dumarkuna dumar ha u shaqeeyeen markay adag duruuf adag timaado islaantan waayeelkaahi oo u baahan cid xanaanaysa waxa weeyaan waa inay dumar xanaaneeyeen haddii ay kugu soo aado islaam weyn oo handikaab ah oo duqa ah oo aad ilaahay maarata taas u shaqaysid way ka fududa marka raggu rag ha u shaqeeyeen dumar hadday duruufta adkaato weeyaan inkastoo mihnada laftigeeda iyo shaqadaani shaqo dani ah ay tahay anigu koleyto masaladaas intaas baan odhanayaa qofka gabadha kale oo su-aasha weydiiday inay muxaadarooyinka iyo khayraadka ay soo aaday meel 200 oo kilomitir jirtana way ka timid 200 oo kilomitiri sida la og yahay xataa culimadaas ka hadla safarka waa safar weeyaan 200 oo kilomitir marka qof gabadha 200 kilomitir maxram aan safraysa waxa weeyaan weensa maxram aan safrin khayr bay doonaysaa muxaadara doonaysaa muxaadarada khayrka waxa kamida midaan shariicadu amartay inaysan maarta maxram la'aan socon muxaadarada kamida laftigeed meeshaan laga sheegayo maarta haweenay ilaahay maanta qiyaamaha rumaysay uma banaana inay maartay ay safarto riwaayada qaarkood masir yawm wa layla riwaayada qaarkood safar mudlaqa soo arway safar lagu magacaabo marka safarka looma ogole alxamdulillah wasiilooyinku waxa la isku gaarsiinay maanta way bateen ayadoo meeshaan fadhiday gurigeeda ka dhageysan karaysa duruusta ay muxaadara ka socon kartaa waxa weeyaan meel kasta ka buuxdaa marka waxaan lahayd hadda maxram hesho soo kaxaysato atimaado haday weyso khayrkood waxa uu jirtaa gurigeedii ha joogto hana maartay khayrka say u dhageysan karayso ha u dhageysato misaladaas aan leeyahay naam 14 casho iga socday dhiigii caadada ama marka ma dukanaya 14 cashadood waxa weeyaan dhiiga caadadu waa socon karaa haday hubto dhiiga caada inuu yahay 14 ilaa 15 caado way gaari karaysaa sida oo kulluba ay qabaan madhab shaafiiciyadu ay qabaan ayaan masalada wafqan yani masalada ku xiran tahay dhiiga fiirintiisa dhiiga waa in la fiiriyo qofku ama ay u fiirsataa haday gabadhu mubtadi'a tahay ama ay mutahayyira tahay ay dhiigu marka ugu horeeyo ama gabar wareertay ay tahay ku adkaanaysaa ee gabadha maarta mu'taadada caado u lahayn jirta dhiiga ayadoo arrinta dib ka soo gaari mayso way garan kartaa caadadeedu markay tahay markaysan ahayn marka haday gabadhu mutahayyira tahay ay dhiigu ku wareertay ama ay marka ugu horeyso
14 casho uu la gaari karaya dhiigu ha sugato ilaa maartay ay ka hubsanayso inuu dhiigga caadadu ka go'ay oo alqasatu albayda oo kale calaamadaha leedahay ku dhiigu uu go'ay jiray ay ka gaarayso ilaa laga hubsado inuu dam fasid yahay iyo istixaada marka uu soo bedelayo naam su'aasha afaraad oo ah shawaal soonkeeda ina isku xira isku xaqiijiya ama isku dabageliya ama tataabucan u soomahay ma masala ma taqasaba waa maya waxa weeyaan waxaad soomi kartaa maalin waa afuri kartaa bisha shawaal 6 kamida on baa laga doonaya inaan sootid haddaad hore ka soontid iyo haddaad gadaal ka soontid iyo haddaad dhexda ka soontid waa masala ku furan haddaad tiraahdo khamiis kasta iyo isniin kasta aan soomayaa ee markaasi aad saas u soontid waxay soconaysaa qasab ma ahan ma garanaysaa intaas su'aalaha miya sidii baa ka hadlay mid baa hartamada laba gabdhood oo walaalaha jiray miya musiibada ahayd laba gabdhood oo walaalaha oo waxay tiri laba nin oo gaala ay qabaan horta Soomaalidu qabin ma soo oran jireen waa u fuulaan bay oran jireen eragii fiicneed in la yiraahdo ahayd sida asalka Soomaaliga horta laba gabdhood oo laba nin oo maarta gaala qabaan in la yiraahdo ma ahane waa in la yiraahdo laba gabdhood oo laba nin oo gaala u fuusha Soomaalida sidii jireen way u fuulaan marka misaladu qabitaan meesha ma yaalo xaqiiqatan marka la yiraahdo gabdhahaasi ma xariirin karaa mase ma xariirin karo waxay ku xiran tahay maslaxada ka dhalanaysa hadii aad maartay ay suurtagal tahay xiriirkaagu inuu maslaxada ayagu u jiro inaad u aqli celiso oo aad wax u sheegtid oo ay ka aqbalaan oo xiriirkaasi aad khayr ku gaarsiin karto waxa weeyaan xiriiri laana meeshan waxa weey waa laga badan yahay waqti la isgoyn jiray lama joogo waa laga badan yahay muslimiinta hadii laakiin adigu aad naftaada uga baqdid inay maartay raadkaaga tagaan sida qofka juudaanka qaba looga carro uga carar wallahu a'lam jazakallahu khayran wa ahsana Allahu ilayk wallahu almusta'an waxa jira su'aalaha qaarkood oo isu eg su'aalaha qaarkoodna xoogaa waxa wad mudaynaysan waadix aanay ahayn marka wixii aan fahmi weyno isku dhibimayna biidin ilmawla wiil aan dhalay baan u baxshay Malik magaca dib ma ku jira dad badan ayaa igu qabsaday su'aasha labaad waxa jira dumar markay masaajidda imanayaan asturan markay suuqyada iyo aroosyada tagayaanna aanan asturayn oo laga yaabo ilaa iyo qoortooda in la arko kuwa iyaga ah xaqiilo loo hayaa ilaa xad intee la eg su'aasha xigta ayay shariicadu bannaysay isku tallaalka ilmaha ama isku shubka shahwada ninka haddii aanan haysan dhakhtar muslim ah maxaa ii bannaan dhakhtar gaal ah hawsha iyada ah ma qaban karaa saddexda su'aalood insha Allah ta'ala Sheekh Maxamed Cabdi Umal ayaynu hordhigaynaa بسم الله الرحمن الرحيم سؤال هوري جوابته waxa weeye dib male magaca Malik waa la bixi karaa aymadii salafkana rag baa la dhigi jiray saxaabadii qaar baa Malik la dhigi jiray marka waa magac caadi loo bixin karo ruuxa wax dhibo male su'aasha labaad dumarka markay xafladaha tagayaan ama suuqyada aadayaan qaawan masaajidda markay imaanayaan asturan inay masaajidda markay imaanayaan soo asturaan waa ku mahadsan yihiin laakiin tan kale oo markay banaanka aadayaan aynan asturnayn ayaa khalad ah ama xafladaha ay ka qayb galayaan asturka iyo xijaabku waa amar alle waa amar rasuul sallallahu alayhi wasallam waa sharaf iyo karaamo gabadha muslimadda waxa la doonayaa inay xilli walba Allaheeda ka baqdo shirkeedana ay asturto aynan isqaawinin haddii xafladay tagaysana waa ka sii daran tahay haddii ay magaalo aadayso oo ay dee suuqa aadaysana waa markay ugu darnayd masaajidkaaba ka yarroonba oo yara asturanba sidaas daraadeed arrintaasi waa arrin khalad ah oo loo baahan yahay xilli walba markay gurigeeda joogto mooyaan hadayba bannaanka u baxayso inay asturkii sharcigayd ku baxdo su'aasha saddexaad oo ah in ilmaha la isku tallaalo
oo ninka manidiisa iyo xaaska ukunteeda la isku tallaalo ma bannaan tahay? haddii shuruud la helo way bannaan tahay. shuruuddaa waxaa kow ka ah labadan ruux inay isqabaan. hadduuna xadhig u dhaxaynin saxoo inay isqabin layskuma tallaali karo biyahoodiiya ukunta. haddii laysku tallaalana ilmaha meeshaa ka soo baxa wuxuu noqonayaa ilmo garaca wala dusinaawa abtir male. shardiga waa koobaad. shardiga labaad waa inay ku dhali kari waayaan dariiqii saxda ahayd, dariiqii caadiga bini aadamku ku tarmi jiray ee sariirta in lagu kulmo ahayd, waa inay suuroobi weyda inay ku ilmo dhalaan. shardiga saddexaad waa in la hubiyo la xaqiijiyo waxa la isku tallaalayo in ay yihiin biyahoodii oo ina meesha wax kale soo gelin. shardiga afraad markii ilmaha ukunta iyo biyaha la isku tallaalo minka la gelinayo makaanku waa inuu noqdo islaanta makaankeeda. maxaa la diidayaa? meesha hawl baa ku jirta. qaar baa laga yaabaa xataa makaankooda iyo minkoodu inuusan ku habboonayn ama uusan qaadi karin ilmo. markaasaa waxaa la sameeyaa naag kaloo uu qabo ayaa minkeeda loo geliyaa. ukunteedii iyo biyihii ninkaa la ysku abuuraya. markay isla falgalaan baa inta la qaadaa waxaa la gelinayaa naag kaloo uu qabo minkeedaa la gelinaya. saasuu ku dhalanaya. markaasaa waxaa la leeyahay tii ilmo la'aanta ahayd baa dhashay. marka waa wax laysku kabkabay soo maarat. xaggan min buu ku koray, ukunta mid baa iskale, minka mid baa iskale, biyahana ninkii baa iskale. waxa dhan laakiin xadhig baa isugu xidhanoo way is wada qaqabaan. taa waa la diiday sheekh. taa waa la diiday. laanna waxay leeyihiin sida saxda ah ilmuhu keliyata ukunta iyo biyaha ma ahee meesha uu gelaya minka iyo xididada iyo khasaa'is bay leedahay. khasaa'istii buu meeshan ka qaadanayaa. marka sidaas daraaddeed shuruudaha haddii la helo laa maanica dadka dhali waayey ma dhalayska ah sidaa inay ilmo ku raadsadaan, lanna waa maqsad min maqaasid shariica. haddii shuruuddaa la waayana xaaraan bay noqonaysaa. wallahu aclam. جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكما. مشايخنا إلهي سبحانه وتعالى كأجر سيو. waxaan malaynayaa xayn su'aalaha wali sii harsan oo ka badan intii hadda aynu soo maray. macal xuseen baa lagala tashanaya in la sii wadi doonayo in kale, laakiin intii aan soo gaarnay intaas weeye. alla subxaanahu wa tacaala ha nagu anfaco cilmiga iyo fataawaadka culimmadu ayna siiyeen. rabbina ha naga mid yeelo min aladiina yastamicuuna alqawla fayattabicuuna axsanah. وجزاكم الله خيرا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.